waxaa la guda galay bisha barakeysan ee Ramadaan waxayna bilowday hay'adda horumarinta bulshada ee At-Tanmiya Al-Ijtimaaciya afurinta boqolaal qoys oo danyar oo ku nool duleedka magaalada Muqdisho iyo qaar ka mid ah gobolada dalka. Mashruucan ayay mas'uuliyiintu tilmaameen inay ka faa'iideysan doonaan qoysaska danta yar ee ku nool degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose. Mas'uul ka socday ururka iskaashiga Islaamka oo madasha ka hadlay ayaa waxa uu tilmaamay in inta bisha barakeysan ee Ramadaan lagu guda jiro ay ka faa'iideysan doonaan qoysas ka badan 1000 qofood oo ku nool gobolka Shabeellaha Hoose. kuna beegan kowda bisha Ramadaan ee barakeysan sanadka 1438 ee hijrada waxaa sharaf weyn oo ah inaan daah furno mashruuca afurinta dadka sooman ee si gaar ah ugu deeqay markiiska lagu magacaabo Malik Salmaan ee gargaarka sida halkaas ka muuqata markiis Malik Salmaan lil-Iqaatat wal-Acmaal Khayriya hawshaas oo maanta si toos u bilaabatay oo la rabo inta bisha Ramadaanka ay socoto in loogu gargaaro oo lagu afuriyo dad fara badan oo ah dadka ka soo jeeda deegaanadan maaragtay Afgooy iyo meelaha ku xeeran ka soo jeeda in lagu afuriyo barnaamijkaas waxaa si gaar ah u fulinaya munadamada ama hay'adda loo yaqaano ururka iskaashiga Islaamka OIC munadamada tacaawun islaami oo ay la shaqeynayaan ururada kale ee maxalliga gaar ahaan ururka hawshan sida gaarka u fulinaya ee la yiraahdo Somali Development Organization ama Tanmiya oo hawshan agaasimay Sheekh Cabdi Fataax Xasan Axmed oo ah madaxa fulinta hay'adda horumarinta bulshada ayaa waxa uu tilmaamay in hay'adda horumarinta bulshada deegaano iyo degmooyin ka tirsan dhulka Soomaalidu ay degto mashruucan si rasmi ah ugu bilowday degmada Afgooyana ay qayb ka tahay meelaha mashruucaasi uu ka bilowday. waxaan u mahad celinaynaa Allah subhanahu wa ta'ala sidoo kale waxaan u mahad celinaynaa markis Malik Salmaan markiska la yiraahdo Malik Salmaan lil-Iqaatha wal-Acmaal al-Insaaniyya oo maanta ku soo deeqay afurkan ugu talagalay dadka muslimiinta ah ee Soomaaliyeed iyo sidoo kale munadamada tacaawun islaami oo ururka iskaashiga Islaamka naloo soo mariyay hawshan dhamaantood u mahad celinaynaa. runtii afurka ma ahan intaan oo kaliya acmaal kala badan ayaa jirtay oo halkan laga qabtay oo OIC-da ay ka qabatay inta abaaraha socdeen raashin qaybin badan ayaa socotay gaar ahaan markis Malik Salmaan markuu wadanka yimid raashin badan ayuu ka bixiyay gaar ahaan gobolada waqooyiga haddana waxaa insha Allah taala afurkan anaga tanmiya ahaan fulin doona ilaa iyo 100 qoys 600 oo dhankan ceelashii halkan ah iyo 500 oo zoonkan ah insha Allah taala waan rajaynaynaa tirada inay sii kordhi doonto. waxaan u mahad celinaynaa dhammaan dadkii hawshan agaasimay oo ugu horeeyo maamulka markaskan Cali Sayid Xaaji. sidoo kale madasha waxaa ka hadlay Cali Sayid Xaaji Cumar oo ah madaxa xarunta agoonta ee Badar ee mashruucan uu ka soconayo inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan waxa uu faahfaahin ka bixiyay hanaanka mashruucan. dhammaan hay'adaha khayriga ah ka qayb qaadanaya barnaamijkan afurinta ah oo barnaamijkanna yani oo afurinta ah gaar ahaan maanta yani qaybta oo Afgooy Shabeellada Hoose ayaa loogu talagalay oo yani barnaamijkanna waxa ka faa'iideysanayo Afgooy 500 oo qof maalin walba. sidoo kale waxaan dareenkooda wax ka weydiinay qaar ka mid ah dadka mashruucan ka faa'iideystay. magaca Madiina Xasan haye Madiina Xasan hooyo maanta maxaa lagu siiyay afuraad isay haye boorish isay haye bariida isay tamaraad isay hilibaa isay sidoo maxaa dhihi dadkii keenay maxaa dhihi dadkii meeshanaga dadkii ilaahay wiino waayido uu geeg noolalaana fadayni sheeni madasha koraade ku beel ay fiile maxaa maanta lagu siiyay maxaa ku afuraysaa lagu siiyay
ما اللي إسي بريسة اللي إسي هلبة اللي إسي أبطان اللي إسي سيو أركتا أفريقيا ما تلوس كار اللي سي صون كون صون دنجي هذا سجان لي هالهني نسيو كار اللي سي مشروعا أفرينتا وإسكا كاشانيان هيئة هرمرينتا بلشدة iyo منظمة التعاون الإسلامي ayaa waxa maalgelinaya markas Salman للإغاثة والأعمال الإنسانية وفريقيسو yahay boqortooyada Sacuudi Carabiya waxaana ka faa'iideysanaya maalin walba ku dhawaad in ka badan ama ku dhow 2,000 oo qof kuwaas oo kamid ah qoysaska danta yar ee ku nool gudaha gobolkan Shabeellaha Hoose mashruucan laga fulinayo xarunta Umu Badar ee lagu xanaanayo agoonta ee degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose habeen walba waxa ka afuri doona sida mas'uuliyiintu ay tilmaameen in ka badan 500 qof si kastaba ha ahaatee mashruucan ayaa waxa uu qayb ka yahay mashaariic kala duwan oo iska kaashanayaan منظمة التعاون الإسلامي iyo hay'adda horumarinta bulshada taa oo looga faa'iideynayo qoysaska danta yar ee ku soo hayaamay duleedka Muqdisho iyo kuwa kale ee ku kala baahsan daafaha gobolada dalka xasan ka ah Somali News Afgooye